nabadgelyo. aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. sharafi korkiina ha ahaato. anigu waxaan ahay Sayd Cali Macalin Ibraahiim. waa barnaamijkii is-abuur. guushu waa rayo iyo hami aad lahayd oo kuu rumoobay. tusaale ahaan inaad aqoon-yaan noqoto hadday hamigaagu ahayd oo aad noqoto aqoon-yaan heer sare, waxaad rumaysay qayb ka mid ah hadafyada noloshaada. waxaadna gaartay guul, taasoo ah guulaha bilowga u ah nolosha. sidaa bay guuluhu u tixnaan doonaan. mar walba oo riyo aad rumayso, hadaf baad ku guulaysatay oo guul baad gaartay. halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 10 qodob oo haddaad isku aragto aad tahay qof leh astaamaha guulaystayaasha dhabta ah ama cabqariyiinta noloshani ka guul gaaraya. qodobka 1, ku dayashada dadka guulaha gaaray. in badan sida aynu la wada soconno, dadka leh astaamaha guulaystayaasha waxaynu u markhaati kici karnaa inaynu ku aragno in badan in ay ku daydaan dadka guulaha dhabta ah gaaray, ama rasiij badan ha sameeyaan ama waddooyinkii qofkaasi ugu guulaystayba ha raadiyaan, balse waxay isku dayaan inay raadraacaan meelihii ama guulihii ay gaareen dadkii guulaystayaasha dhabtaa, iyagoo ay u yihiin role model ama dad ay ku daysadaan. haddaad isku aragto astaantan, waxaad leedahay mid ka mid a astaamaha dadka guulaystayaasha lagu yaqaano. qodobka 2, go'aan adeeg hadduu shaygu adag yahay xitaa. haddaad qodobkani isku aragto, dadka kale lama mid tihid oo dadku aad ka duwan tahay. in badan dadkaanan guulaysan ama dadka fashilka nolosha ka soo wajaha, go'aankoodu ma adka oo dadka kale hadalladooda ayay in badan raacaan. hayaraac ma ahan dadka guulaha gaaraya ama astaamaha guulaha dadka leh oo go'aankoodu aad buu u adag yahay. qodobkan iyo qodobkii hore haddaad isku darsatana, waxaad haysataa 2 qodob oo lagu yaqaano dadka guulaystayaasha dhabta ah. qodobka 3, yeelashada dad badan oo lid kugu ah. haddaad leedahay dad badan oo lid kugu ah, micnaheedu maaha inaad tahay qof liita, balse waxaad tahay qof laga maseerayo oo in badan ay dadku rajaynayaan in sidiisa oo kale ay naqdaan, siraha noloshu uu ka fahmayna ay ka fahmaan. yaysan ku niyad jebinin haddaad yeelato dad lid kugu ah ee waxay ka maseerayaan qofka aad tahay in sida aad u fikirto iyo yoolka aad dunida ka leedahay. haddaad astaantan isku aragtana, waxaad ka mid tahay cabqariyaasha dunida saamaynta weyn ku yeelan doona haddaadan adigu isdilin. qodobka 4, sawirashada wax la yaab leh ama wax khiyaali ah. qodobkan haddaad isku aragto adigoo sawiranaya wax la yaab leh oo aad dadka uga duwan tahay, ama ku fikiraya waxyaabo khiyaali ah oo noloshaada saamayn inay ku yeeshaan ama aad dunida ku beddesho aad doonayso, waxaad leedahay mid ka mid ah astaamaha lagu yaqaano cabqariyiinta dunida. qodobka 5, jacaylka uu jecel yahay inuu in badan la sheekaysto dadka waaweyn. xigmad baa waxay ahayd ka dhig noloshaada mid saamaynteeda beri da'yartu ka sheekeeyaan, duqowduna mucjiso ku tilmaamaan. ninka cabqariga ah nolosha lagu yaqaano ama guulaha nolosha ka gaarayaba, astaamaha uu leeyahay waxaa ka mid ah in uusan ku mashquulin dadka leefalkiisa ah iyo dadka ka hooseeyaba, ee uu in badan jecel yahay inuu wax badan ka faa'iido ama uu la socdo dadka ka waaweyn si uu waayo aragnimo iyo hababka loo guulaysta uu ka barto. qodobka 6, isla hadlidda nafsad ahaantiisa xilliyada qaar. dadka cabqariyiinta ah waxaa lagu yaqaanaa in badan nafsadooda in ay xisaabiyaan, in ay la sheekaystaan, noloshooduna iyaga ay qorshaystaan. qodobka 7, aamusnaan ilaa iyo xad ah, sida in aanan laga hayn wax sir ah iyo in aan la fahmayn gebi ahaanba. haddaad qodobkan isku aragto, xaqiiq dadku waad ka duwan tahay oo waxaad haystaa waddadii dhabta ahayd ee guusha. in badan haddaad aamusan tahay oo qof aan la fahmayn aad tahay, sirtaadana qof aadan u sheegin, waxaad haysaa jidka dhabta ah ee cabqariyiintu ay maraan. haddii lagugu wareerayo, haddii la dhahayo qofkani waa kuma, sidee lagu fahmayaa? adigu waxaa tahay nin haya astaamaha ay leeyihiin dadka guulaystayaasha ah. dadka guulaystayaashuna maaha
kuwa hadal badan in badanna lama fahmo waxa ay damacsan yihiin iyo dadka ay yihiinba. qodobka 8aad, isku kalsoonaan nafsad ahaantiisa. ninkani leh astaamaha guulaha, kuma kalsoona dadka kale wax ay qabanayaan. waxa uu in badan ku kalsoon yahay waxa uu gacantiisa ku qabto. waxa uu in badan raadiyaa waxa uu isaga qabanayo, ee kama fikiro dadka kale waxa ay u qabteen ama dadka kale waxa ay u qaban doonaanba. isagaa wax walbaahi samaysta, nafsad ahaantiisa buu ku kalsoon yahay. haddaad astaantan leedahay oo aad naftaada ku kalsoon tahayna, dadka kale wuxuuda aadan ku qancin ama libintooda aadan ku qancinna, adigu waxaad leedahay astaamaha cabqariyiinta lagu garto. hambali ayaana ku leeyahay. shayga 9aad, isku daya in uu barto shay waliba. cajiib, in aad barato shay walbaahi aad bay u adag tahay, balse ninka cabqariga ahi shay walbaahi wuu u fudud yahay, oo shay walbaahi wuxuu isku dayaa in uu barto. waa uuna ku dadaalaa, ugu dambaynna in badan oo shayada dadka mucjisgeliya ayuu bartaa oo dadka buu ka yaabiyaa. qodobka 10aad, in dadka hareerihiisa jooga ama dadka u dhow ay u qiraan qofkaasi inuu yahay qof cabqari ah. haddii intaasi aad tahay adigu, dadka in badan way kuu qiri doonaan oo waxay ku oran doonaan adigu waxaa tahay qof la yaab leh. ninkan waxaa laga rajaynayaa inuu noqdo qof la yaab leh. haddaad astaamahan isku aragto, adigu waxaa tahay qof cabqari ah. haddaad in badan isku aragtana astaamahan qayb ka mid ah, waxaad raadisaa inta kale oo aad adigu samayn karto. guuluhuna dhammaanteen xaq baynu u leenahay. xigmadda aan ku soo gabagabaynayo hadalkayga waxaa weeye, qofna libintu ilaahay gooni umausan siinin. adigu libinta waad xanan kartaa, waa markaad xeerkaaga beddesho, hamigaaga aad kobciso, garaadkaagana aad sarraysiiso, howl qabadna aad ku darto. adigu is adkay oo keliya, nolosha xaq baad u leedahay inaad ku guulaysato. astaamahan qofkii isku arkaahina insha allah guul caaqiba leh buu gaari doonaa. yuusan ka joogsanin hamigiisa, ha daa'imiyo, ilaahay baana kula jiri doona.